الحمد لله سائل meeshan wuxuu leeyahay laba xadiid hala isu kay waafajiyo xadiid kale fuqaradu waxay jannada gelayaan dadka aqniyada ee waxaysto hortood 500 sano iyo haddii aanan rabin faqiirnimo jannadana horey aan ka gala aan rabo saa la isu waafajinayaa san isu waafajin karaa waxaan rabaa masalada dhowr qodob inaan tilmaamo marka koobaad waxaa laga hadlay horta waa dadka la xisaabayo dadka jannada xisaab la'aanta gelaya ma aha waxaa ka mid a ummaddan dad jannada geli doona min gayri xisaabin walaa cadaabin haddii aadan rabin faqiirnimo inaad dadka horeeya jannada gelayana rabto ku dadaal kuwa jannada gelaya bigayri xisaabin walaa cadaabin inaad noqoto wadaarb saa isu waafajin lahayd taasba waad samayn kartaa midda labaad dadkan laga hadlaya akhniyada iyo fuqarada ah jannaday u kala horeynayaan way kala darajo weyihiin ma aha macnaheedu qofkan xooluhu lahaa xisaabtu waqti bay ku qaadanaysaa kuwana xoolo la xisaabiyaba ma laha kanoo faqiirka oo darajo hoose le baa horeynaya laakiin kan khaniga ee shaakirka ahaa markuu yimaado wuu ka darajo sarreynaya haddaba kani waxaa dhici karta hadduu ugu horeeyey kanna markuu yimaado inuu ka darajo sarreeyo waa labadii qof ee jannada wada galay ee khaniga faqiirka ahaa faqiirkaa darajo sarreyn lama dhihin khanigu inuu dambeeyo soo gelista kana darajo sarreeya faqiirkana waa dhici karta qodobka saddexaad raba inaan baraarujiyey waxaa weye dadkan laga hadlayo waa dadkii wada muxsiniinta ahaa ee wanaagsana ee jannada wada gelayay khaniganna waa la soo xisaabay 500 sanaa loogu horeeyey laakiin wuu soo geli waa maalin nuskeed cinda allah ina yowma cinda rabbika ka 1000 sanati mima tacuduun intaa nuskeed waaye ilan 500 iyo 500 waa kunkii dhinaca kale labadaba haddii ahlu janno yihiin nin baa wuxuu yidhi jannada intii laga sheekeeyey ala anigaa meesha kabaha la dhigtay i geeye buuri uu hami yaraa oo wax fiican hamiga weyn ee qofku inuu janno galo uu doonayo faqrigana nabigaa ilaahay ka magan galay waxay aad uga magan geli jireen waxaa faqrigaa ka mid ah ilaahu faqri baan kaa magan galayaa faqrigu qofku dulli badanna waa badaa dad gacantoodna waa u baahaya markuu isbarbar dhigay labada qof qofka baahan iyo qofka waxhaystana waa kii alyad alculyaa khayru min yadi sufla macnaheedu marka xadiidkan ma aha in faqriga la ammaanayo oo faqriga la dhiiri gelinaya ma aha markay saxaabadu nabigu yimaadeen ee tasbiixda salaadiya uu baray ee kadib ay noqdeen ay soo dacwoodeen ay dhaheen maqaniyadii waxaan samaynana waa sameeyaan xoolihiina waa bixiyaan wuxuu yihi dalika fadlu llahi yutii man yashaa oo fadli dheeraado ilaahay siina sadaqaad la baxaan dad baa jannada naar kagaba xoroobay xoolaha ay bixiyeen marka islaamku inuu faqri dhiirigelinaya ma aha hadalkaasaa haddii loo fahmana waa khalad hadalkaa macnihiisu waxaa weeye dadka faqriga en waxaysanin baa la sabirsiinayaa hadday toosnaadaan xoole adduunka ma haysatid inaynan ahayn ka dhignayn inay la agtaana waxba ku lahayn wabillahi towfiiq